بسم الله الرحمن الرحيم daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha lahow waa mar kale iyo isku soo laabasho wanaagsan halkani waa California Somali TV waxaan soo jeedinaynaa barnaamij taxanaha oo ku saabsan Ogaden Gas and Oil barnaamijkii hore waxaanu kaga hadalnay in shirkadii hore ee Shiinayska ahayd lagu sameeyay shaqo joojin shirkadaasi oo lagu magacaabi jiray Poly GCL taariikhda markii ay ahayd 21 September sanadka 2002 haddana waxaa jira isbedelo waxaan rabnaa inaan isbedeladaasi idiin soo gudbino waxaana inoo sheegi doona arrimahaas oo aad u faahfaahsan dejiye oo garabkayga midig fadhiya laakiin intaas samaynin sidii caadada una ahayd waxaan rabnaa inaan idiin soo gudbino taqriir kooban oo ku saabsan shirkadda cusub. Very excited to be here as a newly arrived chief of mission. It's wonderful for me to be here to witness another example of the growth in the economic relationship between the United States and Ethiopia. And as Ethiopia explores the potential of the Ogaden Basin, so happy to see Ethiopia work with such a internationally famous country as Netherlands Sewell, who have gained a reputation worldwide both for their deep expertise, but also for their unfettered commitment to the success of their country. taasi waxay ahayd safiiradda dalka Mareykanka ee lagu magacaabo Tracy Jacobson oo markhaati ka ahayd saxiixa dhexmaray wasaaradda macdanta ee dalka Ethiopia iyo shirkadda Netherlands Sewell and Associates Inc. haddaba maxay tahay sharikaddan? Sharikadda Netherlands Sewell and Associates Inc. ee loo soo gaabiyay magaceeda NSAI waa sharikad caalami ah oo hormuud ka ah taxliilinta iyo falanqaynta macdanta batroolka taasi oo ka caawisa dowladaha dhulkooda ay ku jiraan macdanta batroolka iyo gaaska si ay u ogaadaan qiimaha dhabta ah ee batroolka dhulkooda ku jiro. marka ay dowladda hesho qiimaha gaaska iyo batroolka dhulkeeda ku jiro ayay markaasi ka bacdi suuqgeyn ay samayn kartaa dowladdaasi iyadoo la hoosgelayso shirkadaha maalgashiga iyo qodista batroolka ee caalamiga ah. haddaba sharikadda Netherlands Sewell and Associates waxay diyaarisay warbixin ama report hufan oo ku saabsan qiimaha batroolka iyo gaaska ku jiro dhulka the Ogaden Basin lagu magacaabo. haddaba mar uu CEO-ga sharikadaasi Mr. Scott Rees ka hadlayay shaqada ay qabato sharikadaasi wuxuu yiri Hi, I'm Quinn Nguyen Intercom's The Oil and Services Conference in San Francisco, California. Joining me now is Scott Rees, Chairman and CEO of Netherlands Sewell and Associates. Hi, Scott. Hello. Can you tell us what you do for oil and gas companies? I think our primary role with the oil and gas industry is to help companies understand what the reserves and the value of those reserves are. Really, so when they're actually raising money out in the public marketplace or private marketplace, they have a better handle on what they own. sharikadda Netherlands Sewell and Associates Inc. waxaa aasaasay sanadka markuu ahaa 1961 ninka lagu magacaabo Clarence Netherland wuxuuna go'aansaday inuu sameeyo sharikad khaas ah oo talo bixin iyo tilmaam bixiso arrimaha ku saabsan batroolka iyo gaaska. wuxuu shaqaalaysiistay injineero fara badan oo leh khibrado kala gedisan saas buuna ku helay sharikad magac weyn iyo meeqaam ku leh arrimaha shidaalka iyo qiimayntiisa heer caalami ah. waad mahadsantihiin daawadayaal haatana ku soo dhawaada waraysigii oo faahfaahsan. aad baad u mahadsan tahay dejiye soo dhow waxaadna inooga sheekaysaa arrimaha ku saabsan shirkadda cusub. su-aasha koowaad aan ku weydiinaya waxaa weeye maxaa isbeddel ah oo ku yimid arrimaha ku saabsan Ogaden Gas and Oil? waa mahadsan tahay Dr. Fodci waana dhowahay dabcan sida aad warbixintaada ku xustay waxaynu barnaamijkeena hor kaga hadalnay in shaqadii laga tiray kambaniga China oo isagu laga soo bilaabo 2013 gacanta ku hayay Ogaden
gas and oil صح gacanta ku hayay mhm kambanigaas taariikhdiisii shaqo ee halkaa waxay ku ekayd 21 September 2022 صح isla muddo kooban oo intaa yar oo hadda kasoo wareegtay ah waxaa meeshii soo galay oo booskii soo buuxiyay kambani cusub mhm oo Mareykan ah صح kambanigaas oo dabcan buuxin doona mhm booskii kambanigii Chinese-ka ahaa inkasta oo waxa weeye shaqadu ay kala duwanaan doonto صح oo aysan isku shaqo ahayn ama capacity-ga shaqada uu qaban doono aysan la ekayn mhm tii kambanigii hore uu hayay mhm laakiin haddana waxay Soomaalida ku mahmaahdaa bun mini la waayo reexamarku ها bedelkiisa la helaa هي marka kambanigii Chinese-ka waa baxay waxaana booskiisii soo buuxiyo soo bedelay kambani Mareykan ah magaciisana la yiraahdo اوكي aan dib ka sheegi doono اوكي waxaad bal su'aasha labaad aan ku weydiinaya waxa weeye shirkadda cusub ee Mareykanka ee shaqadan ku wareegtay bal inoo sheeg waxaad inoo sheegtaa waxay ku saabsan tahay iyo yacni shaqada ay qabato iyo waxa weeyaan structure-keeda iyo waxaas oo dhan inooga sheekay waa mahadsan tahay horta kambanigan waxaa la yidhahdaa Netherland Sewell and Associates Inc mhm waa marka Maxaa la magacooda soo la soo gaabiyana waxaa la yidhahdaa NSAI cool waa company international ah waxaana laga leeyahay dalkan Mareykanka صح kambaniganu waa ka duwan yahay shaqo ahaan kambanigii Poly GCL ee Chinese-ka ahaa cool kambaniga China mhm shaqadiisu waxay ahayd mhm exploration cool iyo producing inuu wixii baaritaan horta ku sameeyo exploration waa explorationkii haye kadibna uu soo saaro haye kadibna uu suuq geeyo waa hawlo badan buu qaban jiray saddex macnaha shaqayaad complete shaqada ha haye wuxuu ahaa company isku dhammaystiran Aye. from A to Z haye baaritaankii wadistii soo saaristii iyo iibgeyntii afartaa shay buu isla qabanayay afartaa shayba marka uu baadhayay uu uu qodayay qodayay waxaan ku idhaahdaa wuxuu ku sameynayay macnaha Qiimaynta. qiimayntii wixii Mhm. kadibna uu iibgeynayay haddana uu iib geynayay marka Chinese waxba kama tagaan waa niman soo shaqo tegay waa aboor waa aboor cool kambanigan Mareykanka ah mhm ee hadda yimid waa ka duwan yahay cool kambanigan waa dilaalle haddaynu Soomaaliyeyno mhm waa dilaalle haye wuxuu dilaalayaa mhm xogta shidaalka meeshan ku jira ha qiimihiisa ha iyo xogtiisoo dhammaystiran mhm ayuu gaadar garaynayaa oo ururinayaa cool xogtaas mhm ayuu marka Ethiopia mhm ciddii ay rabto inay heshiis la gasho oo kambaniyada shidaalka soo saara mhm ama iibgeeya ah ha ayay xogta ka iibinayaan marka صح kambanigaas macnaha wuxuu u baahnaanayaa hadda tusaalahaan kale Ethiopia hadday caawa u baahato inay kambani uu yimaado ها oo shidaalkii uu iyo hawshiisa uu galo مهم. kambaniga assessment inuu sameeyo مهم. baa waxay ku qaadanaysaa more than 10 years صح. horta wax inay baadhaan مهم. xogta ay raadinayaan inay baadhaan shidaalka xaddigiisa meelaha uu u badan yahay qaabka ugu sahlan ee lagu soo saari karo مهم. xogta raadinteeda maadaama 10 years ay qaadanayso iyo ka badan صح kambanigana timekaasuu safe garaynaya marka صح اوكي ما قبل بده وان كو شيغينا arrintan 4 ilaa 6 bilood واو xogtoo dhammaystiran صح any company oo Ethiopia ay rabto inay heshiis la يو gasho لكن بولي جي سي ال markii la ceelin rabay Mhm. ما qabilood baa loo qabtay ayaga sida meeshan iiga muuqata horta barnaamijkan waa barnaamij isku xidhan hay waana barnaamij quwado waaweyn hay ay dabcan ku hardamayaan صح Poly GCL waxaad moodaa in la taqaantiqiyey hay shuruudaha lagu xidhay كيف كيف iyo waqtiga la siiyey isma lahayn hay waxaa laga garanaysaa inay ahayd macnaha dabin loo dhigay si shuruudaha marka ay waqtiga yar la siiyey ooga soo bixi waayaan اه kick out loogu sameeyo ileen company iska taga lama dhihi karo صح Soomaalida waxay tiraahdaa iska tag lama dhahe wuxuu ku wuxuu tagaa tagaa la qofka la tusiyaa tusaa صح company iska tag ma dhihi kartid hay dhaqaalaha meesha ka galay hay waa in marka si meesha looga saaro مهم. shuruudo xogaa culus oo Ah. shuruudihayna barnaamijkii hore dadku ay soo inay soo daawadaan baa fiican aynu ku sharaxnay ahaa آه. iyo waqtiga la siiyey oo Mhm. aad u koobnaa مهم. taa marka waxay keentay kambaniga inuu shuruudihii buuxin waayo صح waqtiga kaga soo bixi waayo صح deen marka garabkaa laga taabtay macsalaama leeyahay marka isla markiiba marka مهم. waxaa inoo soo baxaya مهم. kambanigan Chinese-ka ah inuu meesha ka baxo Ethiopia kaliya ma go'aansan صح barnaamij la soo diyaariyay buu ahaa hay waxaad ka garanaysaa okay waxaad ii sheegtaa dowladda Mareykanka iyo waxa doorka muuqda ay ku lahayd arrintan iyo maaragtay sida ay arrintan u taqaantaxisay bal arrintaa ii sharax waxaan kugu sharaxayaa kambanigan cusub ee shaqada la wareegay
sida aynu sheegnay waa company Maraykan كو companygu qaab ahaan waa company private صح laakiin dawladda Maraykanka ها ayaa riixaysa صح waxaana tusaale kuugu ah heshiiska markii uu dhacayay March 23 2022 ماتش محترك March 23 ماتش 23 2022 oo sanadkan aynu ku jirna ah ها waa xilligii way joogtay oo la hordhigay waxyaalaha cadaynta ku tusaya in meeshan macnaha la riixay company Chinese-ka waxa kamid ah ayagoo shaqadii ku jira ayay Ethiopia waxay heshiis la gashay company Maraykanka waliba heshiis kaliya ma aha company kaliya ma aha dawladda Maraykanka sidoo su'aashaada adii weydiisay oo kala doorka ay ku lahayd muuqda wuxuu ahaa heshiiska 23 March dhacayay wuxuu dhaxmaray wasiirka batroolka iyo macdanta Ethiopia Tekele Uma iyo madaxweyne ku-xigeenka company-gan NSAI oo la yiraahdo Joseph Emmanuel NSAI Vice President Joseph M. Wolf signed the agreement. The signature of the contract today was really to certify the reserves volume here in the Ogaden Basin in the southeast corner of Ethiopia. labadan nin markii agreementiga wada galayeen waxaa goobjoog ahaa oo meesha taagnaa agreementiga ku saabsan Ogaden Gas and Oil waxaa goobjoog ahaa oo meesha fadhiyo waliba kelmad ka dhiibtay safiirka Maraykanka safiiradii baa fadhiday safiiradda Maraykanka fadhiday Tracy Jacobson baa la dhahaa waliba shaqada way ku cusbeed iyadu niyo maxaan ku yiraahdaa arrival oo markaa shaqadii koobaad bay kaga bilowday dabcan waliba si fiican bay u hadashay anigu hadalkeeda waad dhageysatay Soomaa waan dhageystay absolutely meesha waxay ka sheegtay in sida aad dhageysatayba dee Maraykanka iyo Ethiopia macnaha barnaamijkooda dhaqaalaha sidii kor loogu qaadi lahaa la isugu xiri lahaa arrinkaas oo ku cadeynaya in dawladda Maraykanku ay ka shaqeysay muddo dheerna ay raadinaysay sidii China looga eliminate gareyn lahaa Ogaden Gas and Oil iyo maxaan ku iraahdaa saameynta xoog leh East Africa Maraykanku uu ku yeeshay sidii loo xadidi lahaa Shiinaha uu ku yeeshay Chief of Mission, it's wonderful for me to be here to witness another example of the growth in the economic relationship between the United States and Ethiopia. And as Ethiopia explores the potential of the Ogaden Basin, so happy to see Ethiopia work with such a internationally famous country as Netherlands Sewell, who have gained a reputation worldwide for their deep expertise. isla markaana uu advertisement iyo xayisiin u sameeyay company-gan cusub ee shaqada la wareegay okay ma sha Allah waa horta waa xog aad iyo aad muhiim u ah in shirkadan la yiraahdo Netherlands Sewell and Associates Inc ay tahay shirkad caalami ah oo maaragtay la wareegtay arrimaha shidaalka Ogaden Gas and Oil marka niyo meeshaasi hadal buu soo jeediyay wasiirka macdanta iyo shidaalka dawladda Ethiopia Tekele ninka la yiraahdo Tekele Uma wuxuuna ka sheekeeyay qiso cajiib ah oo ku saabsaneyd asaga iyo aabihiis iyo ilmuhu dhalay doono arrintaas rabaa inaad wax yar noo gasho Tekele Uma wuxuu sheegay iyo Soomaali ma sheegayntaa Soomaalidu waa dad iska hurda waxa la yiri geelba oo yaa kule bay Soomaalidu yiraahdaan dabcan barnaamijkan aynu ka hadlayno waa barnaamij aad muhiim u ah dadka Soomaaliyeed si guud iyo si gaar ah dadka maxaan ku iraahdaa Ogaadeniya ama Somali state ku nool ay u baahan yihiin inay si qoto dheer ula socdaan sababtu waxa weeye barnaamijka horena waan ku sheegnay sax deegaanka dhanba inuu Ethiopia ka mid noqdo dhaqaalahan baa u sababaha marka laga yimaado siyaasadaha geographical iyo waxyaalihii xilliga jiray muhiimadda ugu weyn ee deegaankan Ethiopia loogu daray waa in Ethiopia uu u noqdo xarig fur dhaqaale mustaqbalka waxaad ku garanaysaa arrinta wasiirku wuxuu sheegay in awowgii aabihii aan dhaho aabihii inuu uga sheekeyn jiray in Ethiopia ay shidaal leedahay oo shidaal weliba fara badan ma dhahayo Ogaden gas and oil ama ma dhahayo Ogaden region ama ma dhahayo Somali region ayaa gas leh oo laga yaabaa inaynu mustaqbalka wax ka helno haddaynu sii wada joogno barnaamijka kama hadlayo cajiib wuxuu si toos ugu sheegay ilmihiisa isagoo yar long time ago sida wasiirku sheegayo in Ethiopia ay shidaal leedahay wuxuu yiri aabahay hadalkaasan ka soo gaaray anigu maanta waxaan taagnahay bir stage ah shidaalkii inaan qiimihiisii iyo xaddigiisii maanta gacanta ku hayo anigu wasiirkii macdanta iyo shidaalka ah taasoo iyaduna ka dhigan buu yiri
in aynu taagannahay geeska ama edge of maxaan ku idhahdaa carruurtaydu inay ka faa'iidaan shidaalkan oo nacfisadaan haddaan anigu nacfisanin صح macnaha awal la yiri bay ahayd أهي anigu hadda xog sugan baan hayaa Sax. waxa ku xiga maxay tahay in laga faa'iideysto اللي قفايد ilmahaygu inuu ka faa'iideysto ها Soomaali Maryooley warkama hayso وركة ما هي shidaalka meesha ku jira xaddigiisa isbedelada dhacaya quwadaha waaweyn ee isriixaya maxaan ku idhahdaa China xataa siyaasadda dhana Ethiopia last 4 years iyo ka hor isbedeladii ka dhacay ee TPLF xukunka lagaga saaray arrintan koobay ka ahayd كوبي كاهي Mareykanku muddo dheer buu TPLF iyo Mel Zanaawi kala hadlayay China inaan la soo dhaweyn صح aan lagu wareejin khayraadkan صح markuu ka madax adeygay xukunkii baa laga tuuray reerkiisiina meesha yareeyda ay ka yimaadeen ee maqala iyo ku oodan yihiin afartan dhinac ay kaga socotaa صح ma garatay ها waxaasoo dhan waxa loo dhexgeliyay waa dhaqaalaha ها arrinta marka marka qiimaha markuu sheegayay meequu ku sheegay qiimaha hadda loo dhiibay reportka ileen reportka hadda 4 bilood ku soo baxay hadda newska waxaan u hayno maaha heshiiskii dhacay maaha waxa weeyaan reportkii baa soo baxay shirkadii shiinayskiina meesha laga caydsay reportka markuu sheegayay meeqa ayaa ku jirto yiri horta reportku sida aynu barnaamijkeena hore ku sheegnay xaddiga shidaalka ee deegaankeena ku jira aad buu u weyn yahay meelo aan la baarin baa jira meelo aan warba laga hayn baa jira laakiin la ogyahay in shidaal ku jiro meelo la calaamadiyo hadda kadib in la baaro ay tahay baa ku jira inta ay xaqiijiyeen waa 3 area haye waa areadan Dooxaad Elale iyo Jeexdin oo saddexdu waxa weeye ogaadeen gas and oil صح saddexda qaybood ee company-ga Chinese iyo company-yadii ka horreeyay ay si dhammaystiran macnaha ugu sameeyeen assessment-iga oo ay u soo saareen macnaha reserve ku jira waxay ku tilmaameen ama wasiirku uu sheegay in inta la hubo saddexda area ay ku jirto 7 trillion meter cube waa 7 trillion oo meter cube oo reserve oo ah oil iyo gas horta tirada aan si fiican dadka u fahamsiino kolka hore tirada xidhmooyin weeye 10 bay ka kacdaa 10 waxaa ku xiga 100 waxaa ku xiga 1000 waxaa ku xiga milyan waxaa ku xiga bilyan baa ku xiga oo bacd ah bacdi markii 10 jeer lagu dhufto bilyankii trillion noqonaysa yaa waxay noqonaysaa trillion with the T oo ta ka bilaabato marka 7 trillion oo meter cube okay da shidaal iyo lacagta ay dhali karto barnaamijyada soo socda ayaynu ku sharxi doonaa dhaqaalaha meesha ayna la socda haddaad rabto inuu newskani aad hesho taxano weeye insha Allah taala waxaad dhahdaa like iyo subscribe insha Allah siina faafi u sii gudbiyo dadka ay qusayso oo Soomaaliya oo dhan iyo gaar ahaan Ogaden region iyo dadka soo jeeda aad iyo aad baad u mahadsantihiin tani kulanti dambe oo wacan waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo iyo amaan